maanta dalkeenna waxaa hor yaalla su'aalaad adag waxaa jira challenges fara badan oo adag waxaynu u soconnaa safar dheer waxaynu ka nimid meel aad u fog ma xumin waan soconnaa laakiin sida diinkaan u soconnaa runtii sida diinkaan u soconnaa waxaynu u baahan nahay marka maxaa inoo hortaagan marka maanta maxaa inoo yaalla haddaynu dad Soomaaliyeedna dadka Soomaaliyeedna dawladdan Soomaaliyeed ma xukuumaddan waxay qeexday runtii Soomaalidaan rabno Soomaaliya aan rabno waa sidee 30 sano kadib say u ekaanaysaa dalkan Soomaaliyeed xorriyadda markuu qaatay waxay ujeedku ahayd inaan xorriyad qaadano xorriyaddii waan qaadanay laakiin markaan xorriyaddii qaadano dawlad noqonay seen xaggeen u soconnaa inooma caddayn maadaama ayna caddayn xaggeen u soconnaa confusion baa imaaday confusionkii marka wixii aan naqaanay baa la aadnay reer hebel boqolaal xisbi oo la garanayn oo qabiil ku wada salaysan oo ka laxda wanka waa kulli magacyo leh oo wada qabiilaysan baa soo baxay dadkii Soomaaliyeed dawladnimadii bay markaas ayay ku wareereen kadibna militarigii waxay arkeen ayagoo shacabka Soomaaliyeed taageeraya waa ayagii dawladdii dumiyay militariguna arrimaha gudahana siyaasad bay ka lahaayeen arrimaha dibaddana siyaasad bay ka lahaayeen way u qeexnayd wixii u qeexnaa si fiican bay u sameeyeen laakiin markay wixii dhameeyeen haddana ayagii meel u dhaqaaqaan oo kale uma sii caddayn vision fog oo fiirsadaan mayna lahayn taasaa marka waxay keentay in la isku soo noqdo dib loo soo noqdo markaynu soo noqonnana xaggeynu aadnaa qabyaalad in la aaday noqotay deedna dalkii dee qabyaalad baa la isugu tegay mar haddii qabyaalad la tegay dalka wuu burburay annagoo wixii la soo maray marka jabhadaha soo samaysmay waxaa la yidhi dawladda hala dumiyo waad ogtihiin jabhaduhu vision ma lahayn hal ujeeday lahayn dawladda hala dumiyo maadaama aynan vision lahayn dawladdii way ku guulaysteen inay dumiyaan laakiin what next uma caddayn meel la aadayo maadaama meel la aadayo jirin waa la isku soo noqday qabiil baa lagu soo noqday hal isdilay noqotay marka annagoo marka waxaa ka faa'iidaysanayn waxana dee inaad wax ka barato loo baahan yahay taariikhda waxaa noo muuqatay dalkan inuu u baahan yahay in loo jeexo vision Soomaaliya say u ekaanaysaa markii ay gaarto 100 sano xorriyaddii laga joogo Soomaaliya say noqonaysaa tii baa marka qeexnay waa caddaynay waxaan sii caddaynay oo kale wadiiqooyinka lagu gaari karo Soomaaliyadaas quruxda badan ee sifaynay see loo gaari karaa waa caddaynay qorshayaasheedoo dhan baan dejinay Soomaaliyadaas marka quruxda badan ee meeshaas ka ifaysa in hadda joogin sidii lagu gaari lahaana aan caddaynay caqabadaha jira oo u baahan in laga gudbo oo laga shaqeeyo caqabadaha waxaa ugu horeeya amniga haddaan amni la helin Soomaaliyada quruxda badan lama gaarayo waxaa waajib inagu ah marka dawladdana priority u ah dalka in la xoreeyo oo laga xoreeyo shayaadiinta dawladdu way ku dhawaaqday markay timidba waa ogtihiin dagaal istiraatiiji leh cadcad oo 3 istiraatiiji 3 waji leh oo mid dhaqaale leh oo mid fikir leh iyo midkii militariga saddexdaba dawladdu waa ogtihiin inay dagaalkaas la galay walina waa lagu jiraa laakiin waxaad moodaa in aan dagaalkaas ay dawladdu gashay inta la gashay gabdhaha kowka ah waa ku mahadsanyihiin laakiin dadkii Soomaaliyeed siyaasiyiin noqoto haddii ay qaybo badan oo ummadda Soomaaliyeed qaybaha ay noqoto oo kala duwan waxaad moodaa weli inaynaan isla qaadan in ay lagama maarmaan tahay in nimanka dalka laga xoreeyo weli marka waxaan ku baaqayaa in loo istaago nimankaas dalka in laga xoreeyo
maxaa jira Soomaalidan rabna gaari mayno haddaynan dalka xoreyn marka wax kasta oo shardi ku xiran isaga in la qabtaaban ma la yatimul waajib illa bihi fa huwa waajib mar haddii aan salaada aad tukan karin inaad weysaysato mooyee dee inaad weysaysataa waa waajib marka mar haddaadan ilmo dhali karin inaad guursato maahaana inaad guursataa waajib kugu noqon mar haddii aan dawladdaad rabtay waxaad rabtay aad gaarin inaad dalka xoreyso ma dalka inaad xoreysaa waajib kugu ah marka waxaan u baahannahay in waxaas prerequisite u ah dawladnimadaan rabno inaan horta soo qabanaa la rabaa marka taas mar kale gabdhaha Soomaaliyeed waan ku ammaanayaa qaybahooda kala duwan runtii dadaalka ay ka soo galeen oo muddada dheer ay wadeen anaga muddadii 3 sano ahayd oo dagaalkani u socday gabdho Soomaaliyeed ayaa inta is aruursadeen oo runtii hooyo Marin iyo gabdhihii waxa way waa la og yahay hooyo u heeli dalkaaga waxaan u malaynayaa hooyooyinkaas waxa si fiican u garanaya hadii la weydiiyo askariga dhaawaca ee isbitaalka yaal iyo midka furinta jooga ayaa si fiican u garanaya cunto qalalan sariiro dawo runtii gabdhahaas Soomaaliyeed iyagoo wakiilka kuwa gabdhaha kalena meel kastoo ay gabar Soomaaliyeed joogto way ku mahadsan yihiin waxaan rajaynaynaa in hawshaas la wada galo laga wada qayb qaato dalkan idinka ayaa hormuud u ah markay timaado lex jecladiisa iyo ilaaladiisa idinka hormuud u ah marka cidna ha ku haleynina taas waa qodob koobaad amniga ayaa wuxuu yahay marka shayga koobaad in hor yaal midka labaad waxa weeye oo muhiimka inoo ah markaan amniga oo isla wadayna insha Allah waxa weeye inaynu constitution keena dhamaystirno oo aan dastuurkeena dhamaystirano dalkeena chapter 7 oo United Nations ama UN Security Council kama baxayno haddaynan constitution keena aynaan dhamaystirin oo inaan dal sharcigiisu ama dastuurkiisu u daa'im yahay aynaan noqon waxaan noqonaynaa dal ku meel gaar ku jooga oo maalin kasta ergey loo soo diro maalin kasta saasaan ku jiraynaa haddii aynaan dastuurka oo inaan dawlad saldhigtay aynaan noqon waa sidii unaan sheegay haddana si aynu dawlad saldhigatay u noqono dastuurkaan dhamaystirno waan dastuurkan waan dhamaystirnaa dastuuradii hore ee Soomaaliya ay soo samaysatay ee la yaqaanay qaarkood baa qaar bil ka yar baa lagu dhameynay maxaa kan meeqas 12 sano maxayna daba wada dastuurka oo la dhamaystiraa waxay keenaysaa gabdhahan dadka Soomaaliyeed ay hormuud ka yihiin gabdhahan Soomaaliyeed ee sharafta leh in ay awoodoodii qaataan siyaasadeed oo ayagu ay wax xukumaan oo dadka shacabka Soomaaliyeed awoodooda la celiyo waad ogtihiin sida loo abiyusay dalkan awoodda sida loo abiyusay hal qof kaan rabo bax kaan rabo fariiso kaan rabo ha igaba soo gelin beledka saan rabaa yeelayaa markaasa waxaa la abiyusay qofkii muwaadinka ahaa qabiilkii odaygii qabiilka hor socday wax alla wax lagaga tagay meesha ma jirto ceeb un hadday adduunka jira fadeexo way soo dhacday meeshaas nin soo tukanaya jumcadii masaajidkan soo tukanaya intuu soo maqnaa la yiri doorashadiiba way dhacday dalkan mid qol ku xiran oo inta qol lagu xiray deedna maqlay oo sacab waa la doortay hebel baa la doortay waa musharax meeshan uu fadhiya oo waliba asagii la yiri asagii baa waxa la leeyahay meesha ku xidhnaa wuu tanaasulay hebel baa sharxaraam wuu tanaasulay meeshan uu ku xidhay dalkan way ka dhacday si kasta oo wax loo abuse karay ayaa wax loo soo abuse marka maalin dhexdeerayda waxaan dhahay habeen dhexdeerayda waxaan iriyoonimayahow doorasho dadban baa laga guurayaa baa la yiri nolosha dadban oo dhan aan ka guurno
doorashada kaliya ma dadbanee nolosha dhanaa dadbanee nolosha dadbanee nolol toos aan aadna marka waxaan aaminsanahay arrintaasi dalkan dee dowladnimo waan iskaga haysanay waxay ahaataba laakiin waxaa la soo gaaray xilligii damiirkeena saxdii uu diidi lahaa waxaas damiirka saxda wuxuu yani xadiis baa jira nabiga calayhi salaatu wasalaam uu sheegay والإثم ما حاك في نفسك وتردد قف wax dambiga sidiisa dambiga inuu dambi yahay inuu san dambi yahay waxa lagu kala gartaa dambigu waa waxa dhibsanayso adiga waad hoosta hadaad naftaada weydiiso inuu dambi yahay waad garanaysaa markaas waliba waxaad nacaysaa dadku inay kugu arkaan marka qofka waxaas abuse-ka kursiga ku qaatay damiir kale xataa kuma raaxaysanayo uu neceb yahay ma jeclaanayo waxaan qabaa marka hawshaas iyada ah dadka Soomaaliyeed cid ayna rabin in la dul dhigo oo lagu qasbo ayay keenaysaa aynu dadka Soomaaliyeed biyo waxa la yiraahdaa sacbadaada looga dhargaay dadka Soomaaliyeed awoodooda aanu celin waa waxa ka shaqeynayno oo dawladda ay ka shaqeynayso midda kale ee muhiimka waxay tahay midnimadii Soomaaliyeed halis ku jirta midnimadii qaran ee dalkan ayaa halis ku jirta nidaamkii kaliya ma aha waad ogtiin wixii Soomaaliland ka dhacay oo sidaan u joognay inuu fadhiinay baa waxaan aragnay qayb dalkii kamid oo la iska qaatay kadib baan de qaylo waad ogtiin wixii naga hal sano oo ka 12 bilood oo waxay naga qaadatay aan nafis lahayn oo qayliya qoob aan isku darnay oo keentay dawladdu intay wax oo dhan mashquulkeeda halka geliso inay deedna nagu soo noqdaan nimankii khawaarijtaha oo aan ka adkaanay inta nala mashquuliyay oo bad kale nala geliyay ina deedna ay keentay inay nimankii ay dib nagu soo noqdaan mashquulkaas dartiis taas marka Soomaaliland baa hayde meela kala jirta oo halis ayadana bari waxba kuma aha inaad bari hadana aragto meel kale oo wax la saxiixay waaba dhici kartaa inay meel saxiixan jiraan oo iska aamusan marka waxaynu u baahanahay dalkeeni federal baan nahay laakiin federaalku yuusan ina geynin inaan dalku inuu kala tago ma aha federaalka waxa loogu talagalay adeega inta xamar laga qaado in hooyada Soomaaliyeed ee koonaha ugu shisheeyay joogta loo geeyo ee aysan halkan u soo doonan baasaboorki aysan halkan isbitaal u imaan aysan halkan iskuulkii u imaan aysan halkan jaamacad u imaanin ayaa loogu talagalay ee ay gurigeeda ku hesho adeeg in loo geeyo loogu talagalay dadka laakiin siyaadadii qaranka iyo gobnimadii qaranka iyo madax banaanidii dalka in tuulo la geeyo looguma talagalin tuulo lama geeyo taas ma ooli karto taas caasimadaha ee adduunka taala marka waa in caasimada la geeyaa taas anagu maxaan rabnaa marka midnimadii halis bay ku jirtaa waxaynu u baahanahay inaynu midnimadeeni ilaashano oo dadka Soomaaliyeed ay midnimadii hooyada Soomaaliyeed fariinta aynu hadda kala qaadanin caawa midnimadii khatar bay ku jirtaa waa inaan ilaalinaa arinta kale muhiimka waxa weeye dalkan waa dal barwaaqo ilaahay baa barwaaqeeyay ilaahay wuxuu ku sharfay location-ka horta meesha uu dhigayba ee caalamka uu ka dhigay Soomaali ka dajiyay ayaa waxay tahay meel unique marka waxaan u baahanahay inaan ka faa'iideysano dalkan resource-kiisa in laga soo bixiyo dadkiisa baahida laga saaro dalkan barwaaqada in laga faa'iideysto dawladdan istiraatiijiyada u degan ayay ka mid tahay ay istiraatiijiyadaha ay ka mid tahay waxaan rabnaa in infrastructure-ka wax weyn laga qabto oo insha Allah bilaabanay qaybo kamid ah dekedo airport waxaan rabnaa in dalkan khayraadkiisa la soo saaro haday badda tahay iyo haday bariga tahay
waxaa waqti dhow bilaabanaya insha allah haddii ilaah yidhaahdo oo aan rajaynaya sanadkan intuusan dhammaan ilaahay idankiis inay bilaabato inaynu shidaal qodobno way bilaabanaysaa ma aha uun kii badde ku berigaa bilaabanaya haddii ilaah yidhaahdo marka waqti dhow waxaan rajaynayaa dalkan inuu OPEC ku biiro inuu noqdo dal barwaaqo ah oo dadkiisa oo dalkan loo soo shaqo tago oo haddii ilaahay yidhaahdo dadkiisu aysan laga wada hadlin waa shaqala yihiin iyo way rafaadsan yihiin iyo isbitaal ma leh iyo iskuul ma leh iyo way baahan yihiin ilaahay idankiisa waxaan rajaynaynaa Soomaaliya xilligaas gabalkaas inuu dhaco oo waab cusub uu bariya ayaan rajaynayaa haddii ilaahay yidhaahdo iskama aha oo keliya riyo dream ma aha laakiin gacantaan kula jirnaa shaqadaas sidii lagu gaari lahaa waxaan u baahannahay marka intaas oo aan u soconno oo aan marayno aan leenahay meeshaas aan gaarno idiin sheegay oo ay tahay inaan ka wada shaqayno dhammaanteen waa istiraatiijiyado iyo aragti ay tahay inaan kulligeen wada difaacno laynooma ogola waan ku rafaadsannahay waa ogtihiin dagaal baa ka socda dadka awoodda ha loo celiyo waa la diidaa resourceka ha la soo saarto waa la diidaa waxaasoo dhan lama ogola dadkan iyo dalkan waxaa la rabaa halkaa uu joogo inuusan hal tallaabo hore uga qaadin inuu gadaal u socdo mooye sunnada ilaahayna maba ahaba inaad meel taagnaato ama gadaal baa u socnaa horey baa u socon marka haddii dee la diiday inaad hore u dhaqaaqdo gadaal baad u noqonaysaa dad baa diidan marka meeshaas waxaan u baahannahay marka dadka diidan ee Soomaaliyeed dad waxaa jira wanaagsan dadka diidan Soomaali iyo Soomaali qeyrkeed buu isugu jiraan dadka Soomaalida aan ahayn ee diidan ee Soomaaliya inay resource soo saarato inay nabad noqoto inay dal micnala noqoto diidan waa kuwa weligood diidanaa ilaa haddana diidan idinkuna waa ogtihiin laba yaabi maayo laakiin Soomaalida dadka Soomaaliyeed ee waxa ka shaqeynaya ayaa wax la yaabaa dadka Soomaaliyeed marka laba qaybood bay isugu sii jiraan qaybo cabsanaysa maxay ka cabsanayaan isbedelka waa iska dabiici yaa waa iska natural dadku inuu qaarkood isbedelka cabsadaan oo yiraahdo warniyo haddii waxani dhaqaaqo abbaad meelaad baabuurka ka soo fuushaba weydaa oo adiga meesha lagaaga taga malahayn meesha lagu hayaa fiican cabsidaas waa iska jirtaa anugu dadkaan sheegaya dad shacab ma aha shacabkeenu waan ognahay qiimaha leh laakiin intanada siyaasiyiinta sheega wali anaga siyaasiyiinta sheega marka siyaasigu waxa laga yaabaa inuu ka baqayo warheede war waxaan hadii la sii daayo albaysaa kugu dhaaftaaba balaayad meel aad ka qabataba albaad weydaa waa arrin jirta waaye waa cabsi jirta waxa laga yaabaa qofkaasi wadanidiisuna ma xuma waana badan yihiin runtii waana qof wanaagsan laakiin cabsidaas ku jirta waxaan leenahay qoladaas ha cabsanina waxa weeye iyadoo qurux badan oo wanaagsan ayaad madax ka noqon doontaa marka waxaan leeyahay ka cabsanina isbedelka ka cabsanina yuusan idin dhibin dhibna male in maanta midka joogay uu wax wanaagsan keeno adiguba hadaad joogto waad keeni lahayd oo golow inuu ka jooga keena wax wanaagsan adiguna bari halka ka sii qaado si wanaaji laakiin qaar waxaa jira aan ognahay adeegayaal ah Soomaali ah oo adeegayaal ah oo cadowga u adeega waxaa nasiib daraan marka dad sharaf leh oo madaxa oo dalkan madax ka soo noqday oo hadeertana madax ka noqon doona laga yaabo inay madax ka noqdaan doonaya oo qiimo leh inay kuwa ay og yihiin oo ayagu iga og yihiin inay adeegayaal yihiin oo ay cadow u adeegaan inay kuwaas u sii adeegaan this is waa ayaan darro ayaga iga og inay adeegayaal yihiin way og yihiin cidda u adeegaan way og yihiin cidda u shaqeeyaan way yaqaanaan cadowga u shaqeeyaan way yaqaanaan Soomaali inaysan ahay way og yihiin waxay u shaqeynayaan dano shisheeyeen yihiin way og yihiin haddana laakiin inay mucaaradnimadu u gaarsiiso ninaan ogahay inuu adeega shisheeye yahay inaan asaga difaaco this waxa weeye waa
marka madaxdeena sharafta leh waxaan ugu baaqayaa ayagana war waxaad aniga iga ogtihiin wax ay ka shaqeeyaan oon huba inaad iga ogtihiin yaysan mucaaradnimadu idinla gelin